وبقرة إنجليزكا كوين إليزابيث labaad oo furaysa baarlamaankii waddankaada Ingiriiska waxyaalaha aan jeclay dadku inay ogaadaan sida nidaamyada kala bedelan ee adduunka ka kala jira in ay u kala bedelan yihiin iyo waxyaalaha ay ku salaysan yihiin dhaqan ay u leeyihiin maartay wax walbana macnihiisu leeyahay boqorada Ingiriisku waa boqortooyo waxay matashaa soo socotay muddo aan u malaynaya hadda 1400 mise 1500 si toos ah u socotay oo kala go'in laakiinse awoodeedu awood ay mararka qaarkood awooyadeed ay lahaan jireen iyo tuudatoona ma aho waa awood la qaybsaday oo ay tahay shacabka ay awooyadeed hore ay soo maamuli jireen dadka Ingiriiska ah khaasatan ayaa diiday amarkoodii si markii loo fiiriyana siiyay amar dalab kaasoo ay dhaheen sida annaga aad rabto sida annagu aan rabno inaad noo maamusho ayaad noo maamulaysaa marka waxaan rabaa inaad fiirso u yeelataan labada qolo ee maanta halkan isugu imaan doonta qolana ka socoto boqoradda iyo dadkeedii qolana ay ka socoto shacabka Ingiriiska markaasi bal sida la isu baacsanhayo sida la isugu bootaynhayo iyo qolana ay sheeganayso awood sharci ah oo taariikhi ah inay haysato iskuna dayayso inay u ekaysiiso inay wali jirto awooddaasi kuwa kalena ay leeyihiin maya ma jirto awooddaasi annaga la wareegnay kaliya waxaadna haysaan oo gacanta noogu haysaan inta aan anagu idin dhiibano ama anagu aanu raalli idinka nahay marka bal waxa hadda bilaabanaysa dawladdii Ingiriiska ee ay boqoradda Queen Elizabeth ay ayadu leedahay ayaa baarlamaankii ayaa furmahaya waxaana ay ka sheegi doontaa dawladdaas ayada aha ee iyadu ay leedahay ama madaxda u tahay sida dalka ay u maamuli doonto sanadka soo socda laakiin waxaad ka arkaysaa inay awood kaleete oo ka xoog badan oo tii shacabka aha ay garab taagan tahay muujinaysana ayna leedahay annaga ayaa ah dadka xorta ah ruuxii rabo inuu noo taliyana dooranayna haddana annagaa ku ogol inaad noo noqoto boqorad aan waase shardi ku xidhan inta annaga rabitaanka annaga u yahay waxaa kaloo iyadana aad ka arki doontaa in uu waqti dhacay la isqabtay taasoo shuruud adag la hordhigay boqortooyada lana yidhi waa inaad aqbashaan inaad sidan annagu rabno noo maamushaan sida idinku rabtaan inaad noo maamushaan ma oho ayna aqbaleenna laakiinse aad moodid inay qolobo doonayso inay ka dhigto inay yihiin ayagu wax meesha qolada ugu sarreysa ay tahay aansana ku kala dhaqaaq iyo isku dhacna uusan dhacaynin laakiinse si hoos aha la isu barbardhiga balan daawana guriga iyada matala ay la dhihi karo ka tirsan tahay waana guriga la dhaho House of Lords ama guriga maxaa la dhahaa duqeyda lord waa dadka sarsara way markii la dhaho waa af Soomaali ku habboon ma garanayo ugaasyada oo kaleete kaba qabiilada arrimahaas oo kaleete ayay u dhigantaa waa dad ku salaysan qabaa'ishii iyo ugaasyadii iyo maartay kaba qabiilada uu dalka Ingiriisku ka kooban yahay dadkii matalahaya way oo sida boqoraduba ay u dhaxlayso maaragtay awoodeeda oo aynan ahayn awood loo doortay ayay iyaguna u dhaxlaan amaba ay ugu dhow yihiin waxaa runtii mudan xusid bariye waqti hadda sii fogeyn oo hadda dhow ahayd 900 ahayd dadkan lordska aha baarlamaanka waa guriga sare
sida meelaha kale u dhigmo Australia oo kale ama xataa Soomaaliya aad maqlayseen sanadka ama duqeyda buu dhigmaa dadka asaga aha waxay ku imaan jireen jagooyin ay dhaxlaan asalkeeduna ku salaysnayd dadka beeralayda ah taajiriinta dhulka leh beeryan in waliba dhulka leh dadka dhulka leh wadanka dhan ee Ingiriisku uu qaybsan yahay xataa Ingiriisku weelaha kale adduumada markuu tagayna ay maaragtay dhulkeedii iyo qabsadeen ay yeesheen dadkii lahaa yay ahaayeen dhaxal ayay ku imaan jireen ma ahayn arrin ruuxa kartidiisa iyo taageerada uu haystay iyo kuma salaysnayn baryahan dambe waa laga bedelay laaxad aha hadda ruux markuu yahay ruux si kale loo qadariyo mujtamaca baa saan aaminsanahay yaa oo dowladda xataa ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo ay qayb ka tahay ayaa ruuxa la cayimaa markaasay boqoraduna magacawdaa halkaasay siyaasay ku yimaadaan weli doorasho ma oho waa magacaabid weeye laakiinse waa nidaam hadda ku salaysan dad kaleete oon ahayn dadkii hore ee qabaa'ishii hore iyo maaragtay kaaba qabiilnimo iyo nin dad maaragtay soo lahaan jiray dhulka leh iyo arrimo noocaas xoog uguma salaysno inkastoo weli ayna ka maqnayn oo ruuxu yahay ruux inuu yahay awood leh oo dad badan u talinayo oo ay tahay isku soo duubo gurigan ay boqoradu hadda imaanayso ay ku tusayso awoodeeda waa guriga la dhihi karo baarlamaanka ayada ay labada guri ay ku leedahay oo dadkani ay yihiin dad awoodan iyo sharaftan iyo qadarintan ay dhaxal oo kale ay u yeesheen asalkiina ay ahaan jirtayba hadda wax baa iska bedelay laakiinse weli se dhaxal ay tahay waxaadna ka arkaysaa oo kaaga muuqanaysa dalkani dadka asaga say u labisan yihiin waxaan ku tilmaamaa marar qaarkood waa balamboolo oo kale u labisan yihiin dhar غير عادي bay qabaan macnaha aan caadi ahayn ayna ahayn dadku dukaamada caadiga laga soo gadanaynin dadka shacabka caadiga ee Ingiriiska ah intay dukaan tagaan inay dhihi karin dharkan soo gadanaya ama inay ku xarigoonin oo kale waa dhar khaas ah weey sida boqoraduba ay u tahay khaas ay u dhaxasho ayay dharkana u yahay dhar la dhaxlayo waxa dhanba waa wax macnaha غير عادي ah la iska soo gaaro ruux kasta uusan iska soo qaadan karin marka u fiirso markay rabtay inay baarlamaankii la hadasho markay rabto inay shacabkii la hadasho guriga ay u imaanayso ay ka muuqanayso ay madaxda u noqonayso garbaha ka fadhiya horteeda fadhiya waa guriga asaga ah weeye ee lagu tilmaamo House of Lords ama maartay guriga duqeyda ama kaaba qabiilada aan waxaan ereyga Soomaaliga ugu habboon inuu ka u yahay berigii hore arkitin hadda la socon boqorada ninkeedii muddo dheer ay wada joogeen waa dhintay wiilkeeda ugu weyn oo dhaxaltooyada leh baa hadda meesha keenay maadaama uu xogo yara duqtay asaga gacanta hayay oo soo caawinayo meesha keenay asagaana garab fadhiyo oo macnaheedu dad garanaysan idana macnaha kale leedahay ay tahay waxa ninkii dhaxalka u lahaa markay meesha ka baxdo deewaakan asagana macnaha uu ka agdhow yahay oo meeshiisii ilaashanayo oo maartay isbarahaya dadkana maartay oo dhahaya waa ay kan weeye waxa kale idan arkaysaan waxa title-ka ay ku haysato isaga natigiisu aynan ay adag tahay in la helo ama la qaato waxa la weeye crown-ka ama taajka Soomaaliga waxa lagu dhahaa dabcan waa taaj baa la dhahaa ama dhaclamiya asna la dhaxeelan waa la dhahaa malaha taajku waxa Carabiga baa laga yaabaa موجي أبو موشك لو سوى تاج وحى وروحها بقرك أما أجاسك وحده ماذا حساته أيا الله وحر وضع مثلا هي أود ده يو إن أي تاي شخصي ذلك ودنك بسرية أود بذا له مثلا هي كرام كله أيا هذا نكان وهي هرتة وكهيا وتصهيا أود ده سيدا معناها تيم برها أو كله الاستعمال أو كله يو بستمي My Lord's pray be seated. hadalku markuu bilowday markay timid dadkii iyaga ahaa ee saaniri qolada ay ku leedahay way baarlamaanka dharka khaaska qaba jagooyinkan aan doorasho iyo shacabku inay wataan aan ku imaanin ayaa marka ay u timid
way soo dhaweeyeen markaasay weliba waxay u fasaxday marka inay fadhiistaan waxay tiri fadhiista ayay tiri balaan fiirino waxa marka dhaca loolanka iyo isbaacsiga ka dhacaya meeshan aad ugu fiirsada runtii waxaa laga yaabaa inayna dadka qaarkood u arkin inuu baacsi ka socdo laakiin baacsi aad u weyn ayaa socda oo la istusahayo awoodda ay qolo walba leedahay qolada kalena maaragtay ay u sheegayso ay leedahay annaga ayaa ah qoladii dhabta ahayd iyo kuwa kalena ay leeyihiin maya annaga ayaa ah oo awooddanadu hadda haba yar wiiqinaatee annagaa asal u leh ayna munaasab tahay inay awoodda iyo amarka lagu soo celiyo meeshiisii xaqa ahayd ee dhabta ahayd oo ah dee boqortooyada iyo dadkeeda iyadoo ay ku leedahay nidaamkan oo ah kuwan duqayda ama kaaba qabiilyada ah aanan khaldanayn in taajka waxaa la yidhi aad iyo aad maadaama dahab miidhan uu ka samaysan yahay waan xusuustaa isagoo mar laga bixiyey comment laga bixiyey aad iyo aad buu culus yahay baa la yidhi xataa mar aan maqlay la yidhi in boqoradda uu jebiyo luqunteeda waa suurtagal weeye culayska iyo miisaanka uu leeyahay beriyo marka waxaan u malaynayaa inaanan waxaan aaminsan aanan khaldanayn in taajkaasi caadiyan ay ahayd inuu madaxa u saaran yahay oo iyadoo ay qabto laakiin maadaama hadda duq tahay tabarteedina yaraatay saa darteed ayayna xidhan karin oo inaan maaragtay awooddiisa aynan lahayn marka waa lagu garbadaa inaan khaldanahay waa laga yaabaa laakiin se aad baan u aaminsanahay inay arrintu saa tahay oo taajka lagu garbado waxay ahayd in ay xidhato oo markaa ay qabto deedne oo hadda markii hadlaysa xataa ay qabto maadaama uu yahay calaamad uu yahay sida calanka qaranka ugu yahoo kale iyo awooddeeda iyo maaragtay maamulkeeda ayuu u yahay calaamad u yahay marka inay qabto bay ahayd oo taajka uu madaxeeda saaran yahay oo uu maaragtay ay matalayso laakiinse hadda waa la garab dhigay laakiinse balan fiirin arrimaha ugu muhiimsan marka dhici doona waxa runtii aadka la yaabka u leh taariikhda dheerna leh barka qaarkoodna aan idiin sheegi kuwa qaarkoodna aan si dhab aha loo ogaanaynin oo laga yaabo inay arrimo qarsoon oo maaragtay dad yar u og yihiin ama meelo yaroo khaas ku qoran ay yihiin cod baad maqlaysaan iyo hadal waxaan u malaynayaa boqolkiiba boqol ma hubo laakiin waxaan u malaynayaa codkaasi in uusan ka imaanaynin kuwan dadkan boqoradda horta hor fadhiya waxay ka imaanhayaa baarlamaanka dhabta ah ee saxda ah haddaan ereygaa isticmaalo oo tahay macnaheedu midka shacabka matala ee dadku doortaan dib baan ka sharxi doonaa ee ah kuwa saan idiin sheegay loolanka ay kula jiraan qoladan bolamboolaha u eg ay boqoraddu ka tirsan tahay ee dadkeedii ah ay hadda hor fadhiyaad aragtaan meesha lordka la dhaho qolada ka soo horjeeda ee shacabka matalaysa awoodda shacabka wadata awoodda badanna hadda leh ee maamulka ah ee dalka fulisa boqortooyada iyo boqoradda iyo asxaabteedan bolomboolayaasha u egna ay kolba ayagu say rabaan ay u maamulaan oo waxa ay u dhiibteen un keli ah ay kuwan hirgeliyaan waxaan u malaynayaa inay yihiin qoladaasi codka aan maqlayno waana idiin sharxi doonaa sababta aan codkooda u maqlayno hadalkaas qosolka iyo waxa aan u maqlayno waa arrin muhiima weeye oo jirta oo macno leh arrin iska dhacaysa ma oo si sahlan uma dhacayso taa la socda waxaa protocol ama qadarin ama nidaam la raaco meeshii uu ugu sarreeyey ee uu mari lahaa ayuu marayaa khaasatan markii boqorad laga hadlahayo boqoradaasoo awooddeedii iyo nidaamkeedii iyo ka dambaynteedii meeshii ugu dambaysay ay marayso oo shacabkii la hadlayso baarlamaankii la hadlayso dowladdeedii oo dhan ay tahay inay dhegaysanayaan waxa ay bixin doonto markaasoo kaleete in ama qosol aad maqasho ama wax yaroo si maaragtay aad maqasho ma ahayn marka arrintaa aad maqlaysaan macnay wadataa waan idiin sheegi doonaa macnihiisa asaga la socdo ee ka dambeeya u fiirsada hadda arrin muhiim ah baa socota meeshan oo isku dhicii iska horimaadkii isu bootayntii loolankii labada awoodood ahayd
gurigan ninka albaabka haya dhinaca bidixdiina screenka dhinaca midigtiina ka taagan waa labada albaab albaabka weyn ee laga soo galo guriga baarlamaanka caadiga ah ee shacabku doortaan dadka matalayaasha ah guriga la yiraahdo House of Commons Australia oo kale wuxuu la mid yahay waxa la dhahaa House of Representatives guriga matalayaasha Soomaaliya waxaad maqlayseen waxa lagu magacaabaa guriga waxa la dhahaa golaha shacabka waa midkii bari dhaweyd maqlayseen wad moodaysay in uu maaragtay farmaajo kii kale iska iloobida waxaana muhiim ah oo dad baa laga yaabaa haday u maleeyaan inuu farmaajo waa saxsan yahay si ayna u dhihin ma saxsano wuxuu ku saxsanayn taariikhda uu midkan Ingiriisku leeyahay midkeena ma laho waa mid inagu dadku ay doorteen oo dhaheen si maaragtay ay u dhacdo maaragtay awooddu u qaybsanaato dawladdu aynan say rabto aynan waxay rabto aynan u fulin waa inuu laba guri jiro طبعا أسلكيسي إنجليزك يمانها لغا سو قاطي oo dalal badan ay ka qaadanayaan laakiin se mid kuma salaysan sida Ingiriiska oo kale boqortooyo dadka qasab iyo xoog ku soo haysan jirtay markii dambana amar iyo qasab lagaga qaaday awoodihii qaarkood oo lagu wiiqay walina doonaysa inay soo ceshato oo doonaysa inay iska dhigto inay iyaga yihiin waxa dhabta ah kuma salaysno marka la socda gurigu waa guri shacabku ay doorteen goboladu matala baa la dhahaa waana nidaamka aan inagu samaysanay uu kamid yahay marka yaan loo fasirin in la dhihin farmaajo lama dagaalamayo maartay qortooyada Ingiriiska ma jirto waxay xusuusinaysan jeclay in la wadaaga arrin waxa jirta qosol aha oo ciyaar ah oo madaxda marka qaarkood laga sameeyo ku saabsan ninka la dhaho Donald Trump waxa la yiri markuu Donald Trump uu booqday dalka Ingiriiska ayuu boqorada Ingiriiska wuxuu ku yiri baa liri Queen maxaad maaragtay aad say ku dhacday inaad laga amar qaato oo wax ku khilaafaya uu si jirin oo dawladdaadu ila markii si loo fiiriyo way isu dhigmaan madaxweynaha Mareykanku iyo boqorada Ingiriiska way isu dhigmaan oo iyada madax u ah dalkan UK ga Ingiriiska la dhaho madaxweynaha Mareykanka inkastoo uu la doorto mooyeen asaga madax u ah muddada yar ee uu joogo 4 sano ama 8 sano ah isku awood weey oo amar iyaga ku amar taaglay wuxuu yiri maxay ku dhacday in aad laga hor imaanin laga markaas waxay tiri baa liri waxaan u dhiibaabay tiri dad aqli badan oo aqoon badan ayaan shaqooyinka u dhiibaabay tiri oo saas way wax sababto ah markaas wuxuu dadna markaas waxay tiri fiiri bay tiri kaale hadda waan ku sheegi bay tiri ninkan hadda ninkii markaa jira ra'iisul wasaaraha mid ah ma garanaye hadda jaabanaya bay tiri kaale bay tiri hebel وفيرو هبلو maxay tiri hebel ruuxa maaragtay ruux aad war maxay sheekada arintan maaragtay xilaalka oo kale taa wax adigu u dhigma walaasheed oo kale wuxuu yiri ruux aad adiga walaalatihiin isku hooyiye isku aabatihiin walaalkaana aan ahayn waxaana aan ahayn adigu wax uu dhigma adaba sheekada iga maqan tahay wuxuu yiri muxuu yahay ii sheeg bay tiri markaas wuxuu la garnaa kaas biiri waa ruuxa waay arbuxuurdana waa David Cameron buu yiri waxba ruux dawladda ka tirsan ayuu ku tilmaamay oo yiri ruux bay tiri intay wax tilmaantay waxay tiri ruux saas aha waayo markaas wuxuu la garnaa kaabi caadi muxuu yahay waa hebel buu yiri markaas ay tiri fiiri waa nin smart ah aqal badan bay tiri waxa li Donald Trump soo noqday markaas Ingiriiska markuu yimid meesha Mareykanka markuu soo noqday ayuu wuxuu yiri baa leeyahay waar waxaan u baahnay dad aqli badan in meesha u dhiibo shaqooyinka markaas intuu u yeeray baa la ninkii ku kamid ah kuwiisii gacman yareyaashiisa iyo wuxuu yiri niyo waxaan u baahnay dad aqli badan inaad ii keento biir oo garanaya oo sida Ingiriiska markaas haye ii keen bi abwaalida mid baa loo sheegay arbuudan igu yeera waan itixaaman ka qaadayaa markaas uu yiri dadna muxuu yahay arbuuda waxaad ii sheegtaa buu yiri su'aashii ay boqoradu su'aashay ra'iisul wasaaraheedii ayuu su'aalay markaas wuxuu yiri ii sheeg bi ruux saas oo saas waa ayab yiri markaas wuxuu yiri dadna ninkii yiri intuu fikray wuxuu yiri wallahi ma garanayo buu yiri markaas yidana hebel u yeer bi ku sheegay hebel baa loo yeeray kii kale ayuu yahay ruuxaas buu yiri markaas wuxuu yiri mid kale uu sheegay waa hebel buu yiri markaas Donald Trump inuu soo booday wuxuu waa daga takbiir saqajaan baad waxaad garanaysaa ma jire waa David Cameron way ana uga jeedaa tilmaantii marka iyada boqoradu ay ka hadlaysay ayaa waxay ku dhacaysay David Cameron macnaha oo ruux Ingiriiska joogay ku dhacaysay asagana marka waxay ahayd dadka inuu weydiiyo tilmaantii oo kale ruuxa u dhigmay Ingiriiska
laakiin Donald Trump waxay kaga dhigtayba ninkii ay boqoradu sheegtay iyo moodayaaba inuu yahay ninka maarday title-ka hayso marka waxaan ka jeedaa maybe inuu farmaajo dagaal ku jiro oo uu leeyahay maaragtay boqorada Ingiriiska iyo boqortooyada la dagaalamaya oo waxa uu u neceb yahay guriga duqayda inay bataataay waa suurtagalba maaragtay si kastaba noqotee macnaha waxaan rabaa inaad taa ogaata la farqi baa u dhaxeeya shaqo iskuma laho tanu nidaam inagu aan samaysanay weeye ama dal kasta oo samaysto Australia xataa saas u samaysatay laakiin Ingiriiskase halkaas ku salaysan yahay waa qolo boqoraday matalaan barigii hore lama dooran jirin waxaan la soo magacaabi jiray waxaan lagu magacaabi jiray inay yihiin dadka dhulka leh dadka xataa adoomada lahayn jiray dhul bay wax yeelan jireen xataa dibadaha bay wax ku yeelan awood badan dad la ka qabiila marka si kala soo duubo oo kale ahaan jireen haddaba albaabka marka hadda la hayeed aragtaan idin hortaagan waa albaabka laga soo galahayay guriga baarlamaanka shacabka ama House of Commons la dhaho Commons macnaheedu waxa dadka caadiga ah guriga matala ee tooska loo soo doorto ee shakhsi kastaba uu dad koox ah meel laga soo doorto ay matalayaan islaan ka socota xafiiska ee baarlamaanka kale ee boqortooyadana dabcan boqoradana ka socda baarlamaanka kalena ee ka socda ee boqoradu ay iska leedahay ee House of Lords ayaa soo socota marka gurigani wuxuu leeyahay waxaanu nahay guri madax bannaan shacabka UK matala kale aha sovereign aha wax kale oo ka amar qaadanayno ama amar noo sheegi kala ama tala noo sheegi kara ma jirto ruuxii noo imaan haya waa mid ama annaga naga mid inuu yahay ama waa inuu yahay mid aanu annagu raalli ka nahay oo noo sheegay oo wax sidii dal kale oo dibadda aha matala ay soo dirsadeen oo kale ama meel kale ama ruux shakhsi oo caadi ah oo doonaya inuu wax u sheego waa in aanu ognahay raallina ka nahay uu noo imaan hayo simboliska meesha ka socda waa taas way ruux annagu aan raalli ka nahay oo ognahay oo ku kalsoonahay oo nu rabnay inaan la hadalno oo naga awood weynayn amba noo imaan kara ruux kale nooma imaan karo noomana soo gali karo waad aragtaa marka albaabkii baa la ilaalinayaa laba nin baa albaabkii taagan albaabka nabada u haya waardiye ah ninkanna waa fiirinhayaa ruux baa marka soo socda soo gaardinaya oo balaayo iska soo dhigaya aanu fiirna wax dhaca marka nin baasna soo ka socda baarlamaankii dadka shacabka House of Commons oo daartaan u labisan yahay baa marka albaabka soo istaagay war maxaa soo socda yaa soo socda ruux baa soo socda caadi ah muxuu rabaa muxuu yahay waxa caadi ma aho ma guriga anaga la doonaya inay maaragtay waxaan sheeka aan wax ka ogeyn loo yimaado fiiriya marka waxa uu dhahay dhageysta Close the door. wuxuu amar ku bixiyay waardiyihii guriga houseka shacabka matala halbaabka hala xidho buu yiri xidha albaabka ruux wax aanan garanaynin oo si nooc kale u labisan oo ul iyo wax wato oo balaayo iska dhigaya baa soo galaya meesha muxuu yahay xidha albaabka markaas albaabka lagu xidhay qab sanka lagaga xidhay islaanti waxaa la dhahaa title-ka islaantaasi ay wadato waxaa la dhahaa black road maartay ama xariga madow ayaa la dhahaa oo matalaysa boqorada iyo guriga kale ee boqorada matalay House of Lords albaabka marka lagu xidhay iyadoo la arko ayaa lagu horsiiyo la yiri maxaa rabtaa dib u noqo oo kale lagu yiri marka maxay samaysay iyadana waa loolankii weeye ma aynan bariyootamin oo ma dhihina walaalayaal iyo ma dhihina waxay tiri awoodeedii asalka ahayd ee macnaha reserve-ka dhahoobay iyo muujinaysa iyo meesha ay matalayso oo iska dhigaysa inay dalka iyadu wali maamusho gacanta ku hayso sharciyana wayba taabay xagga legal soo albaabkii bay marka waxay ku dhufanayaan saddex garaacid oo waliba ay ku jirtay maaragtay isweynin oo inna haba yaraatay aan ku jirin cabsiya gow bay ka siinaysaa aan fiirino wixii dhaca waka ay sargaalkii marka baarlamaanka ka socday shacabka ayaa marka meesha darishada ka fiiriyo yiri maxaa ka socda meesha maxaa ruuxan isbalwaalahay wuu fiiriyay markaas uu arkay deena uu arkayaa inay tahay black road macnaheedu waxa weeye waa kii kuwii ka socday boqorada ka socday weeye heshiis baan ku kula jirnaa ognahay inay iswaalwaalahayaan balaayo iska dhigayso way moodaysa inay iyadu meesha gacanta ay maamusho
laakiinse heshiiska aan galay iyo waxaan u dhiibanay iyo shaqooyinka ay noo qabanaysay baa yaa oo muhiim ahaa jireen waan u ogolaanaynaa ha soo gasho bal aan fiirino bal maxay hayso bal aanu ka dhegaysano waan garanaynaa meesha ka socota kuwii boqoradii aanu maaragtay dhinaca iska dhignay annagu waxaan u dirsanay hadda noo qabata haddaan rabnana aan bedeli karnaba aan ka saari karnaba meesha annagoo shacabka afti ka qaadayna weeye markuu fiiriyo arkaya markaasuu fasaxaya hadde macnaheed waxaa weeye fiiri loolanka idiin sheegaya weye iyadoo soo socotaa la arkay markaasaa albaabkii lagu xidhay wejiga lagaga dhiftay ayadiina mayna jecjecna mayna baryootamine awooddiidii hore iyo iyadoo iska dhigaysa inay joogto oo boqoradii ay ka dambayso bay albaabkii garaacday gow bay ka siisay meesha maxaa ka socda oo kale tila waa fiiriye ninkii ma uusan ku waxay nin ugu arkay inay boqoradii kuwii ka socday tahay marka wuxuu dhahayaa deedna ka fura albaabka buu leeyahay marka hadda It's Blackrod. Open the door. marka waa jeegaray wuxuu leeyahay waa tii ka socotay boqoradda bal fura albaabka ka fura marka yiri Blackrod. waa la sheegay marka baarlamaankii baa loo sheegay shacabka matalayaashii shacabka loo sheegay marka islaantii ka socotay boqoradda macnaha ogaadana waa islaantii ugu horreysay baa layidhi runtii jagadaa haysa marka maxaa u malaynina macnaha ma rabo inaad u qaadataan inay islaan tahay maadaama boqoraddu ay tahay islaan inay macnaha islaan matalayso ma oho waa un mar inta badan waxay ahaan jireen rag bay ahaan jireen iyadunbaa hadda taytalka arrintaa wadda fariinta u kala gudbinaysa oo boqoraddana matalaysa un weeyoon laakiinse inta badan rag bay ahaan jireen marka waxaa la yidhi waa Blackrod waa xariggii madooba ama wixii madooba weeye oo macnaheedu tahay boqoradda ayay ka socdaan markaas ruux kale aasna sheegay maqlaysaa oo sheegay islaantii boqoraddii baa wax soo dirsatay macnaheedu weeye haka marka aan fiirino marka wax dhaca ninkiina daba socda asagana wuxuu yidhi ruuxaadii baa maxay aan ku jeedi doontaa orday waa la sujuuday fiirso arrinta marka waxaa loolan baa socda saan idin sheegay loolanka socda wuxuu yahay waa mid nidaamka jira oo ku salaysan inay saxiido hirgelisa ay tahay boqoraddu xataa baarlamaanka dadka maamula xataa waa shaqaalaha boqoradda weeye inkastoo ay baarlamaankii uu xor yahay ashkaastan hadda meesha fadhida eed aragtaan waa dadka shacabka matala una fiirsada waxaan idin hadaayto dadkii balamboolada u ekaa ee boqoradda matalahayay ee boqoraddu u tagtay ee garbaheeda fadhiyey ee dadka ay ku joogtay iyadoo kale ah ee dhaxalka oo kale ku helay waxaan dhar waxay qabeen khaas aha oo dadka caadiga aha ayna soo gadan karin oo inta magaalada aad London oo kale dukaan aadan ka soo gadan karin laakiinse dadkan shacabka matala u fiirsa dharkay qabaan waa suudad iyo weeye laakiinse waa dharka un dukaamada caadiga dhar lagu xaragoodo un mooyeene dhar u baahan khaas oo dadka kale ayna gadan karin ma aha ruux kasta oo shacabka Ingiriiska ka tirsan awoodiis intay dadaba noqoto hadduu gadan karo ayaa dharkan gadan kara oo xidhan kara marka u fiirsa iyadana farqiga u dhexeeya labada loolanka ka socda qolo waxay leedahay waxaanu nahay qolo khaas aha waxaan waan ku dhalannaa waan dhaxalnaa sida aan u egnahayna si sahlan looguma ekaan karo qolana waxay leedahay maya shacabka dalkan iska leh shaqeeya loo haynayo ayaga ayaa awood u tahay wax ma oo ruux walba dadaalkiisa iyo kartidiisa weeye wax maaragtay loo dhalanhayo ama la dhaxlahayona ma oho iyo qoladana kala soo horjeedaa laakiinse nidaamka asagaasi waa la qadarinayaa marka u fiirso islaantii ka socotay boqoradda waxay u sujuudaysaa way qadarinaysaa nidaamka meesha yaalla oo asaga naftigiisu matalaya boqoradda ay ka timid ninkan asagana ninkii hadaay hor istaagay ahaana asaga naftigiisuna wuu u sujuudi oo isna qadarin ayuu tusayaa nidaamka asaga ah waana wuxuu dhan waa heshiis weeye la socotaasaa muhiim in la fahmo qoladan shacabka matalaysa ee baarlamaanka halkan fadhida asliyan waxan way ka soo horjeedaan waxaan loo dhalanhayo iyo waa la kala weyn yahay waa la kala sareeya waa sharafta loo kala dhasha way ka soo horjeedaan haddana se dan darteed iyo xaaladii joogay iyo heshiis bay galeen heshiiskiina maartay ilaa xad haddana inay ka noqdaan ama ay dhahaan waan bedelaynaa mooyeene waqti kale ku habboon mooyeene way fulinayaan marka on dhinacan way ka soo horjeedaan oo ma ictiraafsano ma qirahayaan waxaynu arkaa inuu yahay waxaan munaasab ahayn oo ka soo horjeeda waxay u taagan yihiin oo shacabka Ingiriiska ee caadiga ah inuu qaban karo ayay u arkaan haddana way qadarinayaan waxay leeyihiin waxa wixii lagu heshiiyay weeye inuu isku waafaqnay ilaa aan ka noqonayno oo nu ka bedelayno waa in la qadariyo sidiisa loo waxeeyo marka waxay dhahaysaa marka u fiirsada gabadhii ka socotay marka boqoradda waxa ay tiraahdaa hadalkeeda dhageysta
Mr. Speaker, the Queen commands this. waxay tiri speaker ama macnaha afhayeenka arno Soomaali mar waxa la afhayeen baa la dhahaa macnaha dawlad baa waxa la dhahaa afhayeenkeeda macnaha waxa ruuxa dawladdu waxa ay go'aanka ay soo qaadato sheega marka qaarkood waxyaalaha waxa u baahan si fiican dadka inay u fahmaan oo ereyga aan la iska tuurin oo la iska dhihin sababtoo ah macnihiisu waa isbedelaya marka Soomaalida waxaad maqlaysaa iyadoo la dhaho afhayeenka baarlamaanka la dhaho marka si afhayeenka waa u yahay oo waa shakhsiga kali ah ee hadla una ogolaada ruuxa hadlahayo ruuxuna hadalka u diidi kara ruuxuna hadalka u ogolaan kara marka uu dhaho anaa hadlahayo ruux kale hadli kara ma jiro marka saa markii loo dhaho marka waa afhayeenka way asaga afka haya oo baarlamaanka markuu hadlahayo wax kale hadli kara ma jiro ruuxu uu hadal dhaho baan hadli kara ruuxu uu dhaho ma hadli kara asaga booska ah meesha baarlamaanka marka waxaan u malin ereyga ugu habboon inay tahay in uu yahay maaragtay madaxa waan la isticmaalaa dalalka qaarkood waxaa la isticmaalaa madaxweyne baa la isticmaalaa maaragtay title noocaas loo isticmaalaa isku soo duubo ruuxa la speakerka ingiriiska leeyihiin waa ruuxa baarlamaanka markii meesha la fadhiyo waliba awood kala banaanka hadda uu ma u laho on ka ahayn shaqaalaha iyo waxyaalaha maamulka mooyeene awood kale oo banaanka ka baxsan ma u laho laakiin awoodiisu markii meesha baarlamaanka la fadhiyo ayuu asagu awoodiisu absolute tahay ruuxu aamus ahna waa aamusi ruux hadal dhahana wuu hadli markuu hadlayn wax kale oo garab hadli kara ma jiro marka saas ayuu yahay marka ruuxa marka ingiriiska waxa lagu dhahaa speaker hadlaha oo kale way Soomaaliyana dil waxa laga in la dhaho afhayeenka in la dhaho laakiin waxaan u maleynayaa inaynan ereyga sax inuusan ahayn maadaama qolo kale oo la dhaho afhayeen la ay jiraan sida afhayeenka dawladda oo kale macnaheedu afhayeenka dawladda waxa weeyuun waa shakhsiga dawladdu go'aanka ay qaadato sheego un kaliya asagoo hadlaa un kaliya wax go'aan uu ku leeyahay iyo wax fikrad uu ku leeyahay ma jirto madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama maaragtay wasiir ama qolo kale yaa go'aan soo qaadan go'aanka ama marka asagu soo gudbin dadka u gudbin oo u sheegaya kaas marka kooda afhayeenka la dhahaa soo duubo waxay tiri madaxii baarlamaanka guriga shacabkow boqoradda ayaa waxay idinku amartay in aad imaataan oo hadalkeeda dhigeysa codka yar kala go'ahaya mikrofoonka uu masfiican oo maqlayno laakiinse waxay dhahaysaa waa waliba hadda ogow idinka codsanaysaa ma oho saan idiin sheegay meeshan loolan baa socda loolanka socda wuxuu yahay boqoraddu waxay u aragtaa inay tahay awoodda kama dambaysta ah ee dhabta ah ee soo jireenka ah ee rasmiga ah ee waddankan ka jira inay iyada tahay ay doonaysaa inay sawirka soo saarto qoladanna waxay doonayaan sawirka inay soo saaraan inay maya annagu waxaanu ku dirsanay waxa annagu aanu raali ka nahay wuxuu doonama ha noqdee xataa haddaan madax annagu aan kaa dhiganayno unbaad noo qabanaysaa awoodda dhabta ah ee shacabka matalaysa ee sovereignka lagu tilmaamo waa annaga weeye ee shacabka ingiriiska ee shaqaalaha aha ee maaragtay matalahaya ee awoodda tooska ana ka haysta ayna doorteen waa annaga waxaagu kale wax soo dhoobay weeye oo kale weeye marka haddaba marka iyadoo halka arrintu ka socoto aba waxay leedahay gabadhani boqoradii waxay idinku amraysaa inaad u timaadaan oo hadalkeeda dhageysataan xageena joogtaa waxay joogtaa meeshii markii hore san idiin sheegay baarlamaanka qaybta iyada matasha ay ka tirsan tahay si haddii loo fiiriyo ee isku saansaan karayn sababtoo ah qoladaas intooda badan asliyana saas ahaan jiray way dhaxlaan waxayna ku dhaxlaan ka awow waxay ka soo gaadheen iyo sharaftooda iyo dhaqaalahooda iyo awoodooda ku dhaxlaan oo ay ku haystaan ayaduna halkaas oo kale ay ku haystaan kuwanse hadda inaga hor muuqdo ma oho dhaxalid iyo awood ay leeyihiin waa shacabka intaas oo ruux tiro intaas dhan tahay oo meel ah hadday dhahaan adaan ku rabnaa waad imaanaysaa weeye haddana xaalada kale oo dembi inaad gashay waxaad caabisan jirin adaa ruuxaas ayaa tahay dadka ayaad matalaysaa meesha ayaadna fadhidaa go'aamana shacabka adoo matala ayaad samaynaysaa oo kale marka waxay tiri waxay idin amraysaa inaad timaadaan ood hadalkeeda dhageysataan ayay tiri House of Peers. waxaa marka bilaabatay ninkii baarlamaankan asaga matalahayay ayaa marka arrintii asagoo fulinhaya oo laleeyahay waxba kama qabno waanu ku imaanayna waanu dhegaysanayna waxa aad dhahdo heshiiskii aanu ina dhex maray baa saas ahaa marka yaa qaaday bahalka marka u ahaa magaciisa ma garanaye magac buu leeyahay simbalka u ahaa gurigan asaga buu qaaday tunkuu saarayaa markaasuu islaantiiba daba yaa horkacaysa
asagana marka uu raacaya oo marka baarlamaankiina asna maartay uu ka daba imaanaya oo fiirsada waxa dhici doona baarlamaanka guud ahaan waxa hogaamin doona ra'iisul wasaaraha oo ah shakhsiga ayagu ay doorteen maadaama shacabku ayaga ay soo doorteen ayay asaga awoodda siiyeen asaga marka madaxoodii oo matalahaya marka asaga yaa hogaamin doona guud ahaan waxaase ka horeynaya qolada baarlamaanka matasha ee boqoradana matala u fiirso wali waxaa socota awrintii awoodii iyo yaa meeshan la isku miiqmiiqahaya marka boqoradu waxay leedahay dadka haddana aniga ii matala ee baarlamaanka shaqaalaheeda ah oo awoodda boqorada ku socda oo dad aan soo dooranin oo dad dacayimay ah dad shaqada loo dhiibay ah baa marka horkacahaya dadkii dhabta ahaa oo ra'iisul wasaaruhu marka uu hogaaminayo ayaa markaa dhina daba kacaya waxaad u fiirsataa maadaama oon laga hadlahayo waxa dhahaa ingiriiska lagu dhaha protocol iyo usluub iyo aadaab iyo kala dambayn iyo isqadarin iyo sharciyo qadiim ah oo la raacahayo oo awood iyo dowlad iyo la tushayo maadaama uu meesha uu ka socdo waxay ahayd in la isnidaamiyo si kaadsiinya ah oo file lagu jiro oo ku jirto in loo dhaqaaqa ahayd looma dhaqaaqahayo taana iyadana markay sii socoto baan idiin sharxi doonaa waxa asalkeedu tahay ee ka dambeeya iyadana fiirsada loo dhaqaaqay Make way for Black Lord. Make way for Mr. Speaker. هل يري فيري ها وفيرسو dadkii baarlamaanteeriyaanka ahaa meesha madaxda dhabta ka ahaa yaa saad aragtaba way ka sidan isluubka hadii la raacayo oo arintani ay qirsan yihiin waxay ahayd inay sugaan markay qoladaasi ay ahayd inay ka horeeyaan boqorada matalahaya ay qoladan ay ku daba xigaan yaysay u fadhiyaan bay markaaba iyagana aad u qadarin iyo respect inay kacaan ayagoo oo macnaheedu qirahaya idinka ayaa boqorada nooga dhow idinka boqorada matalahaya idinka qolada sharciga constitutionka iyo baarlamaanka marka idinku markaad kacdaan war marka annaguna idinka daba kacayna oo idin daba raacayna inay u dhacday ahayd ma ahase waxaad aragtaa oo kas ayaa iyagii oon istaagin oon soo dhaqaaqin yaa inaad aragta mooyeen ra'iisul wasaarihii waa istaagay nin kalaba xataa naftigiisu istaagay hortoodu gooyey ilaa ay maaragtay moodidba inay wadadii laga xidho meel ay maraan waayeen ruux baa marka dhawaaqahaya markaasuu wuxuu leeyahay war black roadka u ogolaada ha socdo u baneeya iyo speakerkana u baneeya ayuu ku dhawaaqahaya markaasaa dina loo banaa laleeyahay isagoo maaragtay laga waxaynaya wadadii baa laga taagan yahay ra'iisul wasaarihii naftigiisa baa ya almost nimankii hor taagan oo gabadhan waad aragtaaba wadadii dhuubnayd bay taagan tahay ilaa inay isku miiqmiiqaan bay meeshii ku dhaafeen kuma jirto marka ma aha u moodin inay arrintaasi ay accident u dhacayso ama ay kama tahay kama ma waa kas weeye sawir baa la doonayaa in la muujiyo sawirkaas oo ah idima ictiraafsanin waxaa tihiin ma jirto awoodda dhabta ah ee dalka ee shacabka matalaysa waa annaga idinka ma oho iyo boqortooyada iyo wixii la halmaalaba ma oho taa ogaada la socda annagaa ah qoladii dhabta ayday jirtay la socdo af aan laga dhihina ficil lagu muujina way hadda marka la duleelay oo la socday marka tii kale ayadana dhacaysa laga daba kacaya hal baa lasaga daba kacaya kuwa iska fadhiya u fiirso kuwa iska fadhiya halkaa ka soo fiirinaya saa u fiirinaya kuba iska taagan oo ulbuba iska haysta xataa oo fiirinaya mid baa u soo kacahaya hataa fiiri nin baaba iska fadhiistay fiiri nin baaba intuu kacay marka hore wadana iska fadhiistay kuwaaba iska fadhiyaba arrintaasi waxaa la dhahaa bison inay taan ma erey waxa la dhahaa bisonis baa la ereygaas oo kale saasan ma lunaha macnaheedu dhawada ingiriisiga macnaheedu waxa weeye fawda ah nooca ay baarlamaanka House of Commons ku oo arrinta uga jawaabo ayaa waxay tahay arrin la og yahay oo yaqaanaan oo ugu talagaleenba oo ah fawda ah markii maartay ruux ama dad meel ay la keeno aynan meesha aynan wax ay rabaan aynan rabin
oo inan maartay ay ka soo horjeedaan dadku moogtay way carqaladaynayaan oo iska sheekaysan oo iska buuqi oo naga tag bay dhiyo arna war maxaa tahay oo si qaab daran bay u fiirin oo maartay haddii se ay meesha la qadarin hayo oo la doonayo in usluub iyo qadarin la tuso waa la aamusay hadal lama hadlahayo almost fayl ahaan oo kale la geli si usluub iyo daba socod oo kala dambayna oo ay ku jirto maartay qadar protocol ku jiro baa loo yaa arrinta loo waxaynaya laakiin se waad aragtaan barbaaba iska fadhiyaba boqoradii dhannayd baa u yeedhay baa lagu leeyahay ruuxeed meesha yimid oo u yeedhay wali amar bay bixisay baa lagu leeyahay commanding baa la yidhi inaad hadalkeeda dhegeysataan meeshii marka ay hal mar istaagaan ay dhilaan samcan wadaacan oo kaleeta ay carabi u dhishiray waanu ku maqalay waanu ku adeecnay kala laga dhigi lahaa ayay waxay tusahayaanba in ayban waxan ka soo horjeedaan wuxuu yahay iyo waxa sababtana aynan garanaynin oo kale markaasay si maartay dhubuq barbaa kacay kuwa intuu kacay buu iska fadhiistay haddana ku kala maaragtay kuwan way iska fadhiyaanba oo fiirayaan oo xilay maxaa laga doonayaa meeshan boqoradan waxay haysan ma jirtay maxay haysaa annaga dadkii dhabta ah maxaan ka doonaynaa ka dhageysanaynaa oo kale oo ficilka lagu muujinayo marka la socda arrintani macnaha yaa u qaadanina inay si markii loo firay dhab tahay ma oho laakiinse symbolism weeye waa game muddo dheer soo bilowday waxaan u malaynaya inuu 200 300 markii awoodda la weeqay boqoradda ingiriiska 200 300 sano meelahaas laga joogaa baan u malaynayaa lagu qasbay in doorasho ay dhacdo in baarlamaankan kale la doorto House of Commons la dhaho marka arrintaas baa asalkeedii sidan ay ku bilaabatay oo dhab ahayd hadda se dhab ma ahe waa recreation wax la dhaho kana arrintii oo dib loo sameeyo lanana xusuusiyo oo la dhaho la soco ma ictiraafsanin anagu ma nihin dad aaminsan in wadanka la kala sareeyo oo dadka aad ka sareyso oo awoodan iyo aad u dhalatay oo dadkan kale oo waligood awoodda adiga hayso kale dadka qaarkood 99.9 inay qaban karin ilaan boqoradu waxay ku salaysan sidoo waasaas way boqoradu iyo boqortooyo waxay ku salaysan tahay waxan waa loo dhashaa dad baa kooban oo qabiil ah oo saas ah baa awood u leh dhaxalna u leh waligoodna saa u haysanayo kala way marka dadka arrintaas ayay ka soo horjeedaan marka way u leeleen way sii socdaan meesha marka haddana midda kale xiisada laydana halkan ay ka dhaceen inta aynan boqoradu hadalka marka bilaabin u fiirso ruux walbaba tiisa ayuu doonaya inuu muujiyo boqoradiisaan idin sheegay balanboolayaashii bay hor u fadhidaa si sharaf leh bay u hor fadhiyaan way maxay siinayaan maskaxdoodii iyo dhegtooda dhan bay siinayaan way dhegaysanayaan jah iyo sharaf baa la tusaya waa la ag fadhiyaa markaasaa waxaa imaanaya dad qoladii jabada ku tilaabay baa imaan qoladaasi ma fadhiisanaysa meesha haddii meeshan ay ka socdo nidaam caadi oo isqadarin iyo ay tahay waxay ahayd in la marti qaaday oo meeshan lagu marti qaaday markaa deedna ay fadhiistaan oo kuraasta fadhiistaan ma fadhiisanayaan xataa ma fadhiisanayaan halkaas ay soo tuurayaan markaas ay almost waxa u dhow oo kale habartii baa hadlaysa maxay sheegaysaa oo arkeen hadda inay habarta markaan leeyahay boqoradan ayada shakhsiyan inay uga soo horjeedaan ma oo waa nidaamka dhan way hadduu hadda nin ahaan lahaa boqor mase ayada aabaheed oo kale George baan marin waa magaciisa waxay dhigi lahaayeen oo kale waxay attitude-kooda iyo siday macnaha oo la waajahayaan wuxuu noqon lahaa odaygii baa hadlaya muxuu sheegaya odaygii baa meesha nacnac oo kale dhigi lahaay marka u fiirso waxay soo istaagi doonaan waxaan u malaynaya inay tahay dhabarkeeda meesha ah ayay soo istaagayaan dadkii dhannaa ee loo yeedhay ee la yidhi kaalayo boqoradda amar meel loo yeedhina weliba amarka lagu siiyey inay boqoradda hadalkeeda dhegaystaan meeshaasay soo istaagayaan markaasay maaragtay iska dhegaysanayaan kuwan waad aragta say u qadarinayaan boqoradda iyo jaaha ku jira iyo waxa ku jiro boqoraddanadii baa hadlaysa boqoradii dalka hadlaysa madaxdanadii baa hadlaysa madaxdii dalka hadlaysa bay leeyihiinoo maartay waa la soo labistay dharka khaaska aadan ruuxu iska soo qaado uusan qaadan karin oo inaad maartay dadkan ka mid tahay mooyeene aadan xaq u lahayn ama aadan maartay xidhan karin iyo soo xidheen markaas maartay qoladii marka waa imaanayaan halkaasay marka ya dhegaysanayaan maartay أصلاً قرية قلت ما قلت هذا
ready baa imaanaysa oka halkaas marka la soo istaagay islaantii black roadkii fariinta u gudbinaysay guriga baarlamaanka shacabka iyo matalayaashii macnaha afhayihii ama maaragtay madaxii baarlamaanka oo dabcan isaga naftiisa boqoradda matalahaya iyo dadkii isna la shaqaynayay baa meesha yimid iyagana naftigooda tusaya dharkooda iyo jaahooda iyo waxooda sababtoo saan sheegnay boqoradda ayaa iyaga naftigooda ku salaysan yahay nidaamkooda iyo waxaan kala dabalinta baa imaanayaan boqoradda iyo gurigan baa loo sujuudayaa qoladii marka kaleete maaragtay dhahaysay maxaa ka socda meesha maxaana loo wareerinayaa jabadda ahayd oo kale ayaa iyagana imaan doona dib bay ka suganayaan inay dhahaan oo kale hadalka cadiyad darin dhahaan away islaantii noo yeedhaysay maxay noogu yeedhay kale inay ka dhahayaan lakiinse saansaanku uu arrintu u socoto saasoo kale ay u socotaa waana ku celinaya arrintani ma oho arrin khaas ku ah boqoraddan Elizabeth ma oho waa arrin nidaamka boqortooyada iyo baarlamaanka House of Commons sida uu uga soo horjeeday iyo sida la isu baacsanayo ayay ku salaysan tahay hadalka dhan marka wuxuu ku bilaaban u fiirso waxyaalaha iyadana ingiriiska boqortooyadiisan iyo waxyaalaha ay waqtiyo dheer soo lahaan jireen markii awoodda dhabta ah ay lahaan jireen waxaa weeye waxaa la dhahaa sovereign baa la dhahaa sovereign macnaheedu waxaa weeye waa waxa madax bannaanida buuxda leh oo wax kale ay ka amar qaadanayaan uusan jirin iyaga madaxda isu ah madaxana u ah wixii kale agahooda ah boqoradda marka waxaa dhahaa iyada ayaaba sovereign ah baa dhahaa dalka dhan iyo dadka iyo waxoo dhanba ayadaa ayay hoos yimaadaan adu lahaansho mararka qaarkood waa la isticmaala lahaansho laakiinse dadka waxaa lagu magacaabaa heer subjects baa dhahaa waxeeda waxa iyadu ay leedahay oo kale laga soo qaada marka fiiri markii la leeyahay waqti waa diyaar qoladii jabhadda ahaa waa timid raggaagii iyo dadkaagii maaragtay adiga awooddaadu ay ku salaysnayd ee dhabta ahaa ee lordska ahaana kaaba qabiilada ahaana waa dee waa wada socotaa waa kuwa hor fadhiya jabhaddiina waa timid hadalkaagii say u maqlaan marka la odhan boqoradda wax lagu dhihi mahayo boqoradda waxba looma sheego boqoradda waa in la ogeysiiyaa ninkaas ayaa marka soo hor istaagahaya markaasuu horteeda ku sujuudaya taasoo oo tusaysa macnaha dhahaysa ah macnaheedu wax walba waa diyaar haddaad rabto inaad hadalkii bilowdo waad bilaabi kartaa jabhaddiina waa timid asxaabtii sharafta lahayd waaba kuwii ku hor fadhiya My Lords and members of the House of Commons. haye waxay ku bilowday boqoraddii markaa my lords kaaba qabiilayaashaydii balaayada raggii tafta ah raggeedii ahaa iyo xubnaha guriga commons macnaha waxaa weeye dadka caadiga ah guriga dadka caadiga macnaha dadka caadiga ah ee dee aan iyagu wax khaas oo madax iyo sharaf waxba aan ugu waxayn iska caadiga street manka la dhoo kale dadkii matalahaya weeye marka ugu fiirso my lords asxaabtii kaaba qabiiladii waddanka iyo qolada matasha guriga dadka caadiga House of Commons dadka caadiga macnaha matala ayay hadalkii ku bilowday markaas waxay leedahay dowladayda My government's priority is to deliver a national recovery from the pandemic. adoo isku duudo waxay tiri hadalka waxay ku bilowday hadda dowladayda muhiimadeedu iyo waxyaalaha ay rabto inay qabato waxa weeye bay tiri COVID-19 kaasi ka hadashay laakiin inba ayadana muhiim ah inaan idiin sheego waxa ay dhahayso ma aynan soo qoranin dabcan yes waa la isla ogyahay saan kuu sheegay meesha awood la wadaaga weeyo oo la isla ogaan oo la isla waxayn oo kan oo waxbay ku leedahay cod bay ku leedahay oo mid toos aha inta badan toos ma jiraysan aan toos ahayn oo dadka nidaamka ka shaqeynaya baa dad ayada dadkeedii oo waxeedii iyo waxyaalo badan bay ku jirtaa laakiin isku duubo
arrintan waxaa soo qoray soo diyaariyey maamulay fulinahaya waa dowladda shacabka caadiga ay soo doorteen gurigii haddaan ka hadlaynay ee loo yeedhayey ee jabhadda ahaa uu hadda boris ninka la dhaho boris maxaa yelson maxaa la boris johnson ha uu ra'iisul wasaaraha u yahay haddadan la joogo ninkaas ayaa soo diyaariyey markaasaa la leeyahay dadnaha maaragtay boqoradii duqdiyey waa kan sidanaan rabnaa dalka inaan u maamulno waa inaad aseexo ood seexdo marka arrintaas marka kusanta marka arrintu waa taas way la socda marka nidaamka markaad aragtaan weliba dalyaal dhaqamada soo jireenka ah waxyaalo badan waxaad arkaysaa aad dhihi wuxuu yahay waxaan maxaa loo samaynayaa waxbaa ka dambeeya waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo annaga waddankan Australia hadda boqoradanadu waa ayada boqorad noo ah laakiinse boqortooyada ay u tahay Australia iyo dalal kaleeto oo la mid aha sida Canada oo kale waa mid aha absolutely shaki la'aan door ah oo wax awood aha inna haba yaraatee oo toos ah ayna ku lahayn dalka hadda Australia ka soo qaadno wax awood aha oo amar aha oo iyadu u madax bannaan tahay oo dhihi karto waxaasan samayn ama waxa ma samaynayo inna haba yaraatee ma jirto waa door weeye dalkan Australia markuu dawlad ay samaysteen 1901kii ayaa qaynuunkii lagu sameeyay wuxuu ay ku dhaheen in ay boqoradu u ahaato symbolic sidii horaan ay u jirtay sidii wax kasta oo sharci noqon haya ayaa iyadu u saxiixi jirtay ayay door u dhaheen inay noogu saxiixdo marka maantadan hataa aan joogno baarlamaanka Australia guriga shacabka la dhahay House of Representatives iyo midka duqeeyada sanadka markay wax ka doodaan oo isku waafaqaan sharci ma noqon hayo ilaa ama ayada ama matalaheeda la dhaho governor generalka uu saxiixo laakiin waxa aad muhiim ah dadku inay ogaadaan inna haba yaraatee awood buuxda oo ay ku amartaagleyn karto oo ay su'aal ka keeni karto ma jirto waa wax door ah waa shaqo loo dirsaday oo shacabka Australiaanka ah through baarlamaankooda iyo dadka ay doorteen ay u dirsadeen ay u qabanayso weeye kali ah wax kale uusan ku jirin waxyaalaha ay ku cadaato waxaa ka mid ah kolba ra'iisul wasaaraha jooga marka asaga la doortay ayaa absolutely gacanta ugu jirtaa in uu dhaho boqoraday ama boqorow kalba midka jooga waxaan rabnaa hebel ama hebla inaad nooga dhigto governor general inaad governor nooga dhigto wax dooro ay ka leedahay wax fikrado ay ka dhiiban karto ma jirto way un saxiixi hadduu berri ka maalin wadin muddo dhan yar haddana hadduu ka noqdo oo yiraahdo maya waan ka noqonaynaa haddana sidii oo kale buu dhinto waraaq qoran buu wuxuu dhihi boqoradii ma rabno inaad hebel uu noo ahaado baan rabnaa inaan noogu bedelo in loogu bedelo waliba waxaan rabaa inaan idin la wadaago arrin aad iyo aad xiiso leh oo taariikhda Australia gashay oo ku dhacday nin la dhihi jiray Gough Whitlam midda aan sii dhaweyn buu dhintay markii keli ah ee boqoradu iyo nidaamkeedu intii Australia la dhihi karo xor bay noqotay oo 1901 laga soo bilaabo ay bedelaan ama awoodda la dhaho la iska siiyay ay isticmaaleen amaba ay si u dhow isticmaaleen waxay ahayd marka Gough Whitlam oo ra'iisul wasaare ahaa ayaa waxaa baarlamaanka khaasatan midka sanadka ee duqeyda ayaa ka soo horjeedsaday oo hor istaagay waxa la dhaho biilkii dhaqaalaha dalka lagu maamuli lahaa waxaa biilkii buu House of Representatives oo dabcan markastaba uu dawladdu iyadu aqlabiyada ay haysato maadaama dawladdu ayna jiri karin oo dawladdu ay noqon karin ilaa aqlabiyada halka ay ka haystaan mooyane markuu ka soo baxay duqeyda markii loo soo gudbiyay ayay aqlabiyadna inaan ku haysanin Laborku gurigaas wuu diiday mar labaad yaa waxaan u malaynayaa inay haddana lagu soo celiyay haddana ay diideen markay taa dhacday ayaa governor generalkii waqtigaa joogay ayaa si waxaa lagu tilmaamaa dad badan inuu khaainnimo sameeyey maxaan uga jeedaa khaainnimada asaga oon ina haba yaraatee u muujinin ama aan indicate garaynin in uu arrintan tallaabo kala qaadi doono oo uu haddii uusan baarlamaanka uusan la heshiinin oo baarlamaanku dhaqaalihiisa ayna socodsiinin in uu u arkahayo in uu dalku ku jiro xaalad xun oo macnaheedu ay tahay baarlamaankii iyo dawladdii baa is haysta
taasay noqonaysaa doesn't matter inuu midka uu asagu ka tirsan yahay ay ku waafaqsan yihiin uu xataa 100% haysto aqlabiyadda mar hadday qaybtii kale ee baarlamaanka wax kasta uusan sharci noqon karin ilaa iyaguna ay fuliyaan mooyeene uu hor istaagay waxaa loo fasiran karaa doodbaha ka jirtee in la dhaho dowladda amarkeedii waa socon la'yahay oo baarlamaankii dadku ay soo doorteen ayaa hor taagan marka in la siiyo ultimatum ama maartay arrinka madambayna oo la dhaho dhageyso ama si wax ka soo samaysaba ama qasab ama qasbi wax soo samaysaba ama baarlamaanku ha fuliyo amarkaaga iyo arrimaha aad rabtaa kugu waafaqo ha ku fuliyo haddii ay fuli waayaan oo ku guuleysan weydo hadda waayahay waxaan u arkahayaa in ay dowladdaadii shaqayn la'day oo ayna shaqaynaynin marka waxaa ay igu suurtagal ah inaan maaragtay awoodda reserve-ka ama kaydka la dhaho aan isticmaalo oo markaa dowlad ruux kale aan weydiiyo dowlad ku meel gaara inuu dhiso inta doorashadu maartay ka dhacayso hadduu saasoo kale u hadli lahaa wuxuu ogaa gabanuhu in shaki la'aan uu Gough Whitlam ogaan lahaa in ay suurtagal tahay inuu gabanuhu bedelo una bedeli kara dabcan tallaabadu marka samayn lahaa waxaa shaki la'aan ahaan lahayd inuu isla markaaba boqoradda waraaq u diro una yidhaahdo ninkan gabanaha noo aha ma rabno inuu noo ahaade hebel ku bedel wax doorana mayna lahaateen mid kale marka oo waxaan uu ninkan wata aan wadanin oo faragelin ku sameynaynin ayaa la dooran lahaa laakiin muxuu sameeyay governor generalkii maadaama uu og yahay arrinta inay jirto oo haddii uu ka dareemo prime ministerku in uu ka soo horjeedo ama ruux kale uu dhiibi doono jagada hadduu in yar xataa ka dareemo in uu bedeli karo asaga bedeli karo ma inuu bedelina karo yaa wuu ka qariyay bal waxaa la sheegaa marka gabanaha ra'iisul wasaaruhu mar uu u yimid gabanaha si uu arrimo oogala hadlo waxaa la fadhiyay baa layidhi marka asaga oo ay ka hadlahayeen oo isweydiinayay oo kala tashanayay hadduu dowladda asaga ku wareejiyo say wuxu dhici lahaayeen mucaaradka ninka mucaaradka hogaamiyaa la joogay markuu ra'iisul wasaarihi waxaa li soo galay mucaaradka iyo ninka maxkamadda sare u ahaa ugu sarreeyay ninka maxkamadda u ahaa oo uu kana la tashanayay ka maxkamadda u sarreeyana wuu la tashanayay gabanuhu oo wuxuu lahaa arrintaasaan ku fikirahayaa sharciga ma waafaqsan tahay oo awoodayda kaydka aha een leeyahay haddaan u arko inuu dalkii uu socon lahayo waxba socon lahayihiin yuu tala weydiinaya marka waxaa la go ahead buu siiyey wuxuu yidhi haa buu yidhi wadin awooddaada ayay ku jirtaa haddaad u aragto inuu macnaha ra'iisul wasaaruhu dalkii maamuli leeyahay oo baarlamaankii asaga ay is haystaan waa in awooddaasi waa u kalaaday bal wuxuu yidhi bal haa tala buu siiyey uu dhahayo awood waad u leedahay inaad ra'iisul wasaaraha ka qaado oo u dhiibto ruux kale meel kale kii mucaaradkana deesna inuu arrintaa iyada diyaar u yahay yuu kulley weydiinayay kana tashanayay saasaa kulley loo arkaa adoo alaaya xaal waxaa la yidhi markuu ra'iisul wasaaruhu soo galahayay ninkii mucaaradka ahaa waxaa laga bixiyey xagga dambe laga bixiyey waa la qariyey si uusan shaki u qaadin ra'iisul wasaaruhu wax yar kadib marka isagoon ra'iisul wasaaruhu iska filaynin ayuu gabanihii uu amar waraaq qoray boqoradda uuna ku leeyahay waxaan rabnaa inay ninkan laga bedelo oon u dhiibo ra'iisul wasaaraha dowladda aan ku wareejiyo mucaaradka si ku meel gaaraha doorashada ay ka qabtaan arrintii marka way dhacday tabtii u dhacday runtii waxyaalaha iyadana aan jeclahay inaan dadku ogaadaan waxa ka mid ah Gough Whitlam waxaa aad loo sheegaa waqtiga asaga ahaa hadduu dagaalami lahaa inuu dagaalami karay oo diidi karay bal ninka saaxiibkay Ian Cunliffe oo waqtiga asaga joogay dadka ugu sarreeya aadka looga dambeeyo sharciga Australia constitution-kana ah wuxuu yiri nin waxaa jiray buu yiri lawyer biyo ahaa yaa wuxuu ku yiri baa la yiri haddaad ii ogolaato waan hor istaagi karaa arrintan yuu ku yiri baa la yiri inaad ra'iisul wasaare haddaad ii ogolaato inaan arrintan tallaabo qaado waan hor istaagi karaa ii ogolow buu yiri marka Gough Whitlam waxaa la yiri maadaama arrintu meel xun maraysay oo hadduu diido ay suurtagal ahayd in la kala qaybsamo oo dowladdiisu ay kala jabto oo ciidamadu dhinac la saftaan baarlamaankii kala qaybsamo mucaaradkii uu dhaho markuu u dhiiba ninkan maadaama uu dhiibay ay dhahaan naga dowladaha asagiina de hadduu diido oo yiraahdo dowladda lagama qaadin ay markaa laba dowladood meesha ka jirto arrintaasoo dhan inuu dhicin ayaa waxaa la yiri hor istaagay oo diiday isla markiibana hadalka wuxuu ku bilaabay hadalkiisa waxaa ka mid ah waa famous ah oo aad caan ah oo ku hadlay wuxuu yiri
ilaahay boqoradda ilaahay inuu badbaadiyaa laga yaabaa laakiinse governor generalka wax badbaadinaya ma jira buu yidhi macnaheedu ay tahay in uu aqbalay go'aankiisii laakiinse hadduu dhihi lahaa maya maaragtay ama dalku inuu isku dhici lahaa iyo inuu isku dhici lahayn lama ogo laakiinse se inuu badbaadi lahaa aynan maaragtay dadku intooda badan way ka xanaaqi lahayn waxaa dhihi maxay tahay boqoradda ingiriiska London joogta annaga goormay noo dooranaysa ruuxa ra'iisul wasaaraha noo noqon haya waxaana iyadana aan sidoo kale dad ku kalsoonay ka maqlay in ay jireen si bariyo horeba arrimo noocaas oo kale u dhaceen ciidamo meel lagu diyaariyay oo haddii uu maaragtay uusan Gough Whitlam aqrinta aqbali lahayn inay maaragtay tallaabo qaadi lahaayeen oo maaragtay ay ku qasbi lahaayeen wax noocaas oo kale marka saa darteed ninkaasi waxaa loo arkaa taariikhda uu galay inuu shaqo muhiim ah qabtay Australia u qabtay oo aan la iska hor imaanin una aqbalay maadaama uu technical ba noqotee uu u arkay isla markiiba in laga reeyay oo arrin uusan filanaynin inay dhacayso ay ku dhacday oo nin awoodiisu ay ahayd in uu kala diri karo dowladda isagoo boqorada matalahaya hababa si qaab daran ba u isticmaalay uu ku dhawaaqay waa sidii maxkamad oo kale weeye mar hadduu qaali go'aan qaato dib wixii laga qaadanayo abiil ah ama ka daba tagaha waa laga daba tagi laakiin marka iyada aha qaaliga waa in go'aankiisa la qaato la aqbalo way marka arintu waa taas weeye inta ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan horjeenayaa inaad maartay aad ka hesheen waxyaalaha taariikhiga ah iyo dhaqamada iyo sharciga aad iyo aad ayaan u jeclahay Soomaaliduna horumar weyn ayay gaaraysaa haddii sharcigu suu doonaba ha u qorxumaadee kolba markaa jira la qadariyo laakiinse haddii loo arko inuu xun yahay isla markaaba sidii loo bedeli lahaa loo dhaqaaqo asagoo la isticmaalayo nidaamada markaa jira ee hadda say tahay u jira laakiinse aan laga tallaabsanin marka waxaad ogaataa sharci suu doonaba ha u ekaado inuu yar yahay suu doonaba ha u ekaado inuu qorxun yahay laga tallaabsado oo ruux iska diido ama ha weynaado ama ha yaraado ama madax aad maysan noqonin su-aasha meesha taala waxay tahay yaa u diidaya ruux kasta inuu diido haddii madaxweynuhu ama ra'iisul wasaare ama askari ama generaal uu sharci iskaga dhaafo oo uu yiraahdo ima qabanhayo waayahay seed u dhihi kartaa ruuxa wadada socdana sharciga uu jiray hadduu wada ay ahayd inuusan marin hadduu maro seed u dhihi kartaa ma mari kartid dambi baana ku qabanaya seed u dhihi kartaa ma dhihi kartid way macnaheedu marka waa in khaasatan madaxda dowladda xubnaheedu iyo hay'adaheedu ay shaki la'aan ma aba iyadoon gelin sharciga siduu yahay ay ugu hoggaansamaan hadday ka qabaan su'aal oy doonayaan in la bedelo ha bedelaan hadday u arkaan inuu yahay sharci xun weeye ha dhahaan sharci xun laakiin waa inay u hoggaansamaan intay raacaan siduu yahay waa inay dhahaan sharciga waa sharci xun in la bedelaan rabnaa inta laga bedelahayana ka horeysana waa inay u hoggaansamaan oo saadeen u socdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu